بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وحنا وناكسن dadkana daawanayo idin ahaantiiba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada warka Royal TV oo idinkaga imaanayo xarunta uu TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya warka waxa idin aqrin doona anigoo ah Aweys Maxamuud Jilcow qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah afayeenka mucaaradka Jabuuti Daahir Axmed Faarax ayaa si kulul u eedeeyay madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele warbixinta warkan waxa magaalada London inooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdi Salaad dalada ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka ee wadanka Jabuuti ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan USN ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jabuuti ee wadankaasi Jabuuti waxa ay kaga hadleen musharaxa kaga qayb gali doona doorashada 8 Abriil lagu wada inay ka dhacdo wadankaasi Jabuuti waxaana dood kulul oo ay ka yeesheen xisbiyada mucaaradka wadankaasi Jabuuti musharaxa uga qayb galaya ay xisbiyadu sheegeen in aan si toos ah la isku raacin waxaana xisbiyadu ay soo saareen in mar kale dib ay iskugu yimaadaan isla markaana ay go'aan rasmi ah ka qaataan in ay doorashadaasi ka qayb galaan iyo in ay iska dhaafaan oo xisbiyadu banaanka ay ka joogaan doorashada xisbiyada ayaa waxa ay soo saareen qodobo dhowr ah waxaana arintaasi Royal TV uga waramay afayeenka dalada mucaaradka ah ee wadankaasi Jabuuti ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan USN Daahir Axmed Faarax kaasi oo sheegay in xisbiyada mucaaradku ay qodobadii ay ka doodeen si kulul ay iskula raaceen isla markaana qaarkood ay soo jeediyeen in doorashada laga qayb gal halka kuwa kalena ay si aad uga soo horjeesteen waxaana hadaladiisi kamid ahaa ayaa shirku yeeshay maanta caasimadda mawduuca laga hadlayay shirkaasina wuxuu ahaa ka qaybgalka amba ka jooga doorashada madaxtooyada ee soo socota doorashada oo sida la wada og yahay wax iska bedelay ayna jirin marka loo eego doorashooyinkii hore siiba tii majliska ee 2013 bishii 22 dhacday guddi doorasho oo madax banaan oo laba geesooda oo qaran ma jiro inkastoo ay taasi ay ku qorayd heshiiskii mucaaradkii iyo ra'iisul xukuumaddu ay gaadheen 2014 bishii 13 guddigii hore ee macmalka ahaa ee uu talisku lahaa ee doorashooyinkii hore goobjooga ka ahaa ee hawshana u daynayay ama u xalaaleynayay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa la soo celiyay marka waxay ka dhigan tahay sidii awal bay wax u dhacayeen doorashadu ay ka dheereen xor iyo xalaal ayay u dhacaysaa mar kale marka shirki ay yeelateen maxaa ka soo baxay shirka markii aan yeelanay waxa ka soo baxay in ahzaabtii mucaaradku ay intoodii badnayd ay goosteen inay ka qayb galaan inuu mucaaradku ka qayb galo in midowga mucaaradku uu murashax uu u gudbiyo doorashada uu ka qayb galo qaar way ka maageen xusbi dood buu ku jiraa weli gudihiisa waa xusbiga ARD la yidhaah ee uu madaxa ka yahay gudoomiyaha dalada mucaaradka mudane Axmed Yuusuf Xumed xusbina waa xusbiga anigu aan gudoomiyaha ka ahay ee la yidhaah MRD xusbiga oo isagu doorashada in ka qaybgalka doorashada ku gacan sayday oo aanan ka mid noqonaynin maxay ahaydeen aanan ka qayb geli doonin doorashada sidoo kale waxa uu sheegay Daahir Axmed Faarax in wax dimuqraadiyad ah aysan ka jirin wadanka Jabuuti isla markaana dhibaatooyin xooggan loo geysto mucaaradka kuwaasi oo sheegay in aysan xitaa ka hadli karin warbaahinta oo uu sheegay in warbaahinada qaarkood aysan soo galin xarumaha ay leeyihiin mucaaradka cabsi laga qabo dawladda oo uu sheegay in xabsiyada ay dhigaan dad kasta oo la shaqeynaya mucaaradka ama looga shakiyo in xiriir la leeyihiin dhibaatooyinka mucaaradku ay qabaan waxa weeye xorriyad la'aan isku socod la'aan kulan la'aan cabiraad la'aan doorashadii xor oo xalaal aan ahayn ahzaabtii si madax banaan loo aas-aasi karin loo maamuli karin
axsaab jirto oo sharcigii baan si kayra sharci kaga qaadna la yidhaa xadhig jicid camalka eris wax alla wixii dee la xidhiidhaa amar ku taaglayn ama tacaji ama kali talin daawanaya ayaa waxa aan ugu baaqaynaa inay xiiseeyaan xaaladda Djibouti iyo siyaasadda Djibouti oo inta badan talisku ka been sheego oo TV-ga iyo raadiyaha Djibouti kaga been sheego oo loo haysto inay Djibouti tahay dal dimuqraadi ah dadka Soomaaliyeed qaarkood malaha waa haystaan inay dimuqraadi tahay taasoo waxba ay ka jirin maxamed cabdisalaad Royal TV